sooyaalka dunida. waa barnaamij taxane ah oo aan idinkugu soo gudbin doono dhacdooyinka sooyaalka taariikhda dunida iyo Soomaaliya. maanta waxaan idin haynaa mid ka mid ah barnaamijyo loo qabtay raadiyo Muqdisho kaasoo ku saabsanaa sooyaalka dunida iyo dhaqdhaqaaqii ganacsiga xeebaha Soomaaliya iyo adduunka. haddaba maanta waxaan idin soo gudbinayaa barnaamijkii Soomaalida maanta iyo anigoo ah Khadiija Maxamed Qalanjo. dhageysi wacan. wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii Soomaalida maanta. barnaamijkan oo aad dhageysataan laba goorahan oo kale toddobaadkiiba ayaan guud ahaantiisba waxaan ku eegi doonaa dhaqanka Soomaaliya oo ah mid aad u facweyn. ummad kasta oo dunida ka jirta waxa ay leedahay hiddo iyo dhaqan u gaar ah kaasoo laga garto dunida inteeda kale. sidoo kale dunida marka la fiiriyo waxay u qaybsantaa qaarado kala duwan, hase ahaatee qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa iyadu leh dhaqamo isku dhow haba ugu badnaatee wadamada ku yaala geeska Afrika. Soomaaliya oo kamid ah wadamada dhaca geeska Afrika ayaa haddana waxay leedahay dhaqan iyo hiddo aad u facweyn oo soo jireen ah. marka laga soo bilaabo sanadadii u dhaxaysay 1500 ilaa 1600 oo sano ka hor, waxa taas muujin kara ka ganacsigii Masaarida iyo wadamo kale ay ka ganacsan jireen Soomaaliya xilliyadaasi fogfog. waxyaalaha ay ka ganacsan jireen Masaaridii hore ayaa kamid ahaa beeyada iyo waxyaalo kale oo dalkeena laga qaadi jiray oo markaas iyaga muhiim u ahaa. sidoo kale boqorro iyo shakhsiyaad magac weyn ku lahaa Masar ayaa iyagana kamid ahaa dadkii lugta ku lahaa imaanshaha dalkeena Soomaaliya. waxaa jira meelo kala duwan oo ay yimaadeen dadkaasi ka ganacsan jiray. waxaa kamid ahaa magaalooyin ku yaala dhulkeena, gaar ahaan meelaha xeebaha ku yaala. meelihii ay yimaadeen dadkii ganacsan jiray ama dalxiisayaashaba u imaan jiray dalka ayaa waxaa kamid ahaa Berbera, Saylac, Muqdisho, Bari iyo meelo kale oo kamid ah dalkeena. run ahaantii marka si aada loo tixraaco imaanshihii ay dalkeena yimaadeen shisheeyihii ka ganacsan jiray una imaan jiray, waxa ay muujinaysaa raadad aad u facweyn oo muujin kara in Soomaaliya ay lahayd ilbaxnimo iyo xadaarad aad u fog, isla mar ahaantaasna leh dhaqan iyo hiddo aad u facweyn. si ay u soo gaaraan Soomaaliya dadkii Masaarida ahaa ee dalkeena imaan jiray waxay adeegsan jireen gaadiid badeedyo ay kamid ahaayeen doomaha. sidoo kale inta ay joogaan Soomaaliya waxa ay meelaha kala gedisan ee ay dalka ka imaanayeen ay ugu magacaabi jireen magacyo kuwaasoo ay maanta magacyadaasi qaarkood ah kuwa jira. waxaa laga xusi karaa sida la rumaysan yahay magacyadaasi magacyada magaalooyinka dalkeena maanta lagu magacaabo qaar kamid ah. waxaan tusaale u soo qaadan karnaa magaca faca weyn ee ay leedahay degmada Berbera.
magaca berbera sida ay taariikhuhu qaarkood ay wax ka qoreen ayaa waxa ay ku saleeyeen dadkii dalkeena dalxiiska u imaan jiray iyo weliba ganacsiga inuu magacaasi berbera uu ka yimid beriberi taasoo loola jeeday in ay ahayd berbera meel ay cimiladeedu isbedel badnayd taasoo ahayd in ay mararka qaarkood aad u qabobanayd mararka qaarkoodna ay aad u kululayd sidaasi daraadeed waxaa la sheegay in uu magacaasi berbera uu horay u ahaan jiray beriberi oo lagu magacaabi jiray in marmar uun la tegi jiray berbera sidaasina uu ugu baxay magaca beriberi oo haatan loo yaqaano berbera inkastoo aan magacan laysku wada raacin haddana waxaa la rumaysan yahay inuu magacaasi halkaasi kasoo jeedo oo ayna tahay raad ka mida raadadkii ugu da'da weynaa raadkii taariikheed ee faca weyn ee dalkeena Soomaaliya u huwanaa magaalooyin badan oo dalkeena ka mid ah ayaa iyaguna magacyadaas oo kale xambaarsan ayna ugu magac dareen wadamada Yurub iyo Masar iyo waliba meelo kale oo Afrikaanka ka mid ah gobolada bari iyo banaadir ayaa iyaguna ka mid ah meelaha ilbaxnimada qadiimiga ee dalka muujinaya waayo waxa ay labaduba ahaayeen meelihii ay dalxiisayaashii shisheeyuhu yimaadeen marka laga soo bilaabo 1500 ilaa iyo 1630 marka aan dib u raacno magaca Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa loo yaqiinay xamar oo iyadana ay taariikhuhu wax ka qoreen ayadoo magacaasi la sheegay inuu ka yimid magac carbeed oo ah magaca loo yaqaano geedka raqayga magacan raqayga ama xamar ayaa isaga waxaa si weyn loo rumaysan yahay in ganacsatadu uu ahaa waxyaabihii ay u imaan jireen geedka loo yaqaano raqayga oo la sheegay inuu aad uga bixi jiray sidaasi daraadeedna ay ka ganacsan jireen masaaridii hore ka ganacsigii xeebaha ayaa sidoo kale waxa aan ka xusi karnaa ka ganacsigii xeebaha iyo wadamadii u soo ganacsi tagi jiray dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa ka ganacsigii beeyada ee bari beeyada ayaa iyaduna waxay ahayd mid laf dhabar u ahayd waxyaalihii dalkeena laga qaadi jiray ee caanka ku ahaa dalkeena masaarida oo iyadana u badnayd wadamadii beeyada ka soo doonan jiray dalkeena waana midda maanta dalkeena dunida qaar ay u aqoonsadeen inuu ahaa dhulkii uduga ama dhulkii beeyada haddaba dalka Masar oo iyada lagu tiriyo in ay tahay dal ilbaxnimo xadaarad fogbale ayaa haddana waxay xaqiiqsan yihiin in Soomaaliya ay leedahay dhaqan iyo xadaarad fog waayo waxa ay ka mid yihiin masaarida dalkii u soo ganacsatay jiray Soomaaliya isla mar ahaantaasna ay jiraan goobo lagu muujiyay ilbaxnimadii iyo dhaqankii hore ee Soomaaliya ay lahaan jirtay ayna ka mid tahay masaarida laguna muujiyay goobo badan oo isugu jira goobo bandhigyo qadiimi ah iyo waliba goobo waxbarasho taasoo ay muujinayso in adduunka Soomaaliya horay looga aqoon jiray dadka Soomaaliyeed waxay degan dalka Afrika dacalkiisa bari dhaqan kala duwiyo bada kala dadbiyo warar kala dafira kala dayra male
madaalaya dunidoo dhaniyo dadku yaqaan taariikhdu durugsan bay jireen. inkastoo ay jireen taariikhda fog ee Soomaaliya iyo dhaqanka iyo diinta isku midka ah oo midaysan ayaa haddana waxaa jira qorayaal ka been sheegay taariikhda fog ee Soomaaliya si ay u daboolaan xaqiiqda dhabta ah ee Soomaaliya ka jirtay waayo Soomaaliya waxay ahaayeen bulsho ka midaysan xagga diinta dhaqanka iyo afkaba sidaas daraadeed gumaystayaashii marnaba uma suurtagelin in ay dadka Soomaaliyeed ku kala qaybiyaan dhaqanka hidaha faca weyn leh ee Soomaaliya ay lahayd waana taas soo dejisay in ay dadka Soomaaliyeed ay iska ridaan heeryadii gumaysiga ayagoo dhan kasta ka midaysan maanta waxaa jira qorayaal fara badan oo Soomaaliyeed taasoo si aadah wax ugu qoray taariikhda fog ee Soomaaliya ayagoo ka duulaya daboolista dhaqankii hore ee Soomaaliya ay dabooleen ayagoo waliba ka been sheegi jiray gumaystayaashii ilaa haatan kama aysan harin kuwaasi sidii ay mar kale ugu soo bandhigi lahaayeen bulshada Soomaaliyeed dhaqanka iyo faca weyn ee soo jireenka ah ee dalkeena Soomaaliya. ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii Soomaalida maanta ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaybo goos-goos ah oo aan uga hadlaynay dhaqankii Soomaalidii hore dhanka farsamada barnaamijka waa Siciid Shire Warsame Shuryaako tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.